xilligii qaadka la furay waa xilli fog ba oo loo diri jiray Soomaaliya ilaa xilligii Allah u naxariistay siyaad barra loo diri jiray aniga xilligaas hata iyadoo loo dirahay waan arki jiray laakiin xilligii rasmiga aniga hadda aan soo gaaray waxay ahayd 88 inta soo gaaray iyadoo maartay garoonka laga saaray diyaaradaha la dhoofinay sida taariikh ahaan anu ilaa 1960kii wixii ka sii horreeyay ayaa loo dhoofin jiray Soomaaliya oo gawaari loogu dhoofin jiray oo marka gawaari loo geyn jiray laakiin xilliga diyaaradaha waa xilligan dambe oo hadda aan sheegay geedkan jaadka la yiraahdo maxamedow in dadka Soomaalida ay cunaan asalkiisa ayaa u soo arkay waxa uu soo arkay dadkii awal reer Nordistan oo qaadka halka ka qaadi jiray oo Mandheera iyo Gaarisa iyo Wajeer geeyni jiray ayaa soo arkeen marka maadaama labada wadan ay xuduud yihiin laba dhinacna wax degan isku beelo ay yihiin marka sidaas uu ku gaaray Soomaaliya oo ilaa xaggaas ayaa hada lugla lagu sii geeyni jiray oo maartay lagu sii qaadi jiray Soomaaliya reemriig waxay yiraahdeen yaana lagu beerin laakiin anaga dhulkaas ma ka soo gadan yaana ka soo cunno dadka Soomaalida oo NFD joogi ayaa u soo arkay marka taas awgeedaas meesha asaas ku gaaray geedkan jaadka la yiraahdo inta badan sida la arkay meelaha kale ee wadanka Kenya kama baxa marka deegaankan inuu ka baxo oo waliba dadku ay manfaacadsadaan maxaynu ku ognahay sababta waxa waaye meeshan baa xogaha yar iska qabow baalka badan qabowgaas uu ku baxa wadankan Kenya gudihiisa meel kale oo badan oo lagu abuuray waa jirta laakiin ma sidoo meeshan ugu nafaqaysan yahay xaq uu nafaqoobay dad badan oo Soomaaliya isku dayeen inay qaadaan oo xaq ku abuuraan laakiin sidaas awgeed culumadii baa tiriyaan lagu beerin haatan wad la socotaa dawladda Soomaaliya way mamnuucday in jaadka loo dhoofiyo gudaha wadanka marka bal ka waran mustaqbalkiisa ganacsigiisa waa ganacsiyalka kale la mid yahay hadii adiga aad sidii isaga dhigtay un baad mustaqbalkiisa ku noqonaya laakiin haddeertan hadda aan taagmanay mustaqbal ma laha maadaama meeshii qaasatan uu zaid u dhoofay shaqo ka jirin laga xiri hadda wax mustaqbal uu leeyahay ma laha marka wadan gudihiisa un baa hadda laga wixii yar mustaqbalku leeyahay lagu isticmaalaa